waxay ku nooleed tuugsi, darxumo iyo gaajo, waxayna dhimatay iyadoo milyaneer ah. Assalaamu calaykum walaalahan halkan ku saaxiibnayow, kusoo dhawaada kanaalka Dunida Daahsoon. Muuqaalkan kooban waxaan uga hadli doonaa islaan nolosheeda oo dhan ku dhamaystay tuugsi, balse geerideeda kadib la ogaaday inay milyaneer ahayd. Fadlan haddii aadan horey nooga xirnaan kanaalka kusoo bir oo subscribe taabo, sidoo kale muuqaalka inoo like garee si uu saaxiibo fara badan u gaaro una kobco kanaalkeena. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Dawarsigu wuxuu noqday ganacsi faa'iido leh, uma baahna shahaado jaamacadeed, khibrad iyo raasumaal toona. Qofka tuugsada waxaa laga rabaa inuu tago xaafado iyo goobo ganacsi oo aad u fara badan si uu lacag bilaash ah dadka ugu soo aruuriyo, maalinba maalinta ka dambaysa iyo sanadba sanadka ka dambeeya ilaa uu taajir noqdo. Waatan sheekada Faadumo Cismaan oo nolosheeda oo dhan ku dhamaysatay dawarsi. Waxay geeriyootay iyadoo ka tagtay hanti aad u fara badan. Faadumo Cismaan Maxamed waa Lubnaaniyad ku dhalatay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan sanadii 1965. Faadumo reerkeedu waxay ahaayeen sabool, waxayna ku soo kortay nolol aad u adag. Iyadoo 13 sano jir ah ayayna bilowday inay ka tuugsato wadooyinka. Waxay ahayd qof aan lixaadeed u dhamaystirnayn oo naafo ayay ahayd. Faadumo waxay muddo ah ka tuugsanaysay wadooyinka Beirut. Qoyskeedu waxay tagnaayeen tuulo ka baxsan magaalada. Socodkii ayaa dhib ku noqday oo xaafadiina u hoyato subaxdiina ka soo baxdo ayay aad u dhibsatay. Marka waxay go'aansatay inay hooy ka dhigato gaari waqti hore la nacay oo wadada dhinaceeda yaalay. Gaari jajaban ayay habeenkii dhex seexan jirtay, subaxdiina halkaa ayay ka bixi jirtay. Reerkeedu si walba ayay ula hadleen, waxayna ku qancin waayeen inay ugu yaraan guriga u soo hoyato. Xitaa waxay diiday in qof qoyskeeda ka mid ah uu raaco si uu la dawarsado, xaaladeedana uga warqabo. Faadumo nolosheeda kumaysan qanacsaneen, balse danta iyo duruufta ayaa sidaan biday. Badi dadka deegaanku aad ayay u garanayeen gabadhan. Meelo badan oo magaalada ka mid ah ayay caan ka noqotay. Qof walba wixii uu hayo ayuu siin jiray. Inta badan waxay aadi jirtay goobaha dahabka lagu iibiyo si dadkaas dhaqaalaha haysto ay wax fiican uga hesho. Faadumo isbuucii waxay hal mar booqan jirtay hooyadeed oo da' ahayd. Sidoo kale waqtigaas ayay soo qubaysan jirtay, dharkan iska soo bedeli jirtay. Faadumo Cismaan maysan joojin dawarsiga ilaa ay noqotay 52 sano jir. Halkaa waxaa ka bilowday cudurro, laakiin maysan isdaaweyn. Faadumo waxay noqotay qof bukaan socod ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayay aaday gurigii reerkeeda ay degnaayeen. Way soo qubaysatay oo dharkii ayay iska soo bedeshay sidii caadada u ahayd isbuuc walba. Walaalaheed ayaa ka war helay xanuunkeeda, waxayna ka codsadeen in cisbitaal ay geeyaan, balse Faadumo way diiday. Xitaa waxay isku dayeen inay qasbaan, laakiin way madax adeegtay oo way ka diiday. Waxayna ka cabsi qabtay inay yiraahdaan iska bixi lacagta daawada. Faadumo waxay si degdeg ah ugu soo noqotay gurigeedii oo ahaa gudaha gaarigii dhaxalaystay, iyadoo walaalaheed ka baxsanaysa. 2 toddobaad kadib 15 bishii May sanadii 2018 waxaa la helay iyadoo meed ah. Boolisku waxay ogaadeen in meedka qof dumar ah uu dhex yaalo gaariga ay Faadumo dhex seexan jirtay. Gaarigii ayay fureen, waxay arkeen wax ay la fajaceen. Waxay arkeen boorsooyin ay lacag ka buuxdo oo Faadumo agteeda dhooban. In cabaar ah boolisku ma dhaqaaqin oo meelahoodii ayay ku barafoobeen. Waxayna u badan tahay inaysan weligood arag lacag intaas la eg. Lacagtan oo dhan 5 milyan oo kaniga Lubnaan ah, una dhiganta $3,300. Kaliya maysan helin intaas, balse waxay heleen 3 buug oo banki ah oo ay ku jiraan xisaab dhan 1,700,000,000 oo kaniga Lubnaan ah. Boolisku waxay ogaadeen inay hortaagan yihiin milyaneer oo ku nool meel aan nolosheeda iyo lacagteedaba ku habbooneen. Waxay si degdeg ah u raadiyeen qoyskeeda iyo dad ay qaraabo yihiin. Raadin dheer kadib waxaa loo tilmaamay xaafadii ay degnaayeen reerkii ay ka dhalatay islaantani. Reerku aad bay u liitaan, waxayna ka koobnaayeen Faadumo hooyadeed, 5 gabdhood iyo 2 wiil oo la dhashay. Dhammaantood waa xaasas, balse iyadu maysan guursan oo nolosheeda oo dhan sidaan ayay ku dhamaysatay. Askartii markii Faadumo qoyskeeda uga warameen geerida gabadhooda iyo hantidii ay ka tagtay, aad bay ula yaabeen dhimashadeeda, balse aad ayay uga naxeen markii ay ogaadeen hantida ay gabadhooda haysatay. Maysan rumaysan, ma fududeen inay rumaystaan in gabadhooda ay tahay milyaneer, iyadoo mar walba ka caban jirtay dhaqaale xumo iyo saboolnimo xad dhaaf ah. Walaalkeed Khalid ayaa yiri, waan ogaa inay xoogaa lacag ay haysato, laakiin marnaba maan filayn in hanti intaan la eg ay haysato. Faadumo Cismaan oo nolosheeda oo dhan ku dhamaysatay dawarsi, maalkeeda waxa dhib la'aan dhaxleen walaalaheed. Sanadii 2018 sheekada Faadumo ayaa aad looga hadalhayay dalka Lubnaan iyo dhammaan dalalka Carabta. Geerideeda iyo caanimadeeda kadib waxaa la dalacsiiyay askari ka tirsan ciidanka Lubnaan. Sababtuna waxay ahayd in 8 bilood ka hor dhimashada Faadumo uu gacantiisa biyo ku siiyay, isagoo biyo siinaya ayaa qof jidka maraya sawir ku xaday. Waa sawirkan idin muuqda.
sawirkan ayaana noqday mid hadalhayn badan dhaliyay, sababna u noqday in askarigan dalacsiin uusan filayn uu helo. Dadkii deegaanka ayaa aad ula yaabay sheekada Faadumo iyo hantida ay haysato. Nin ka mid ah dadkii xaafadda degnaa mar walbana Faadumo wax siin jiray ayaa yiri, subax walba waxaan u keeni jiray xoogaa quraac ah, mararka qaar waxaan u soo dhaweyn jiray meelaha ay ka tugsato. Haddii aan ogahay in hanti intaan la eg ay haysato, inaan wax siiyo iska dhaafe, iyada ayaan wax weydiisan lahaa.